أنا إلا يهد حنا فاهمين dadka fiican maxay u dhintaan dadka fiican marba dhibku wuxuu soo raadsadaa qofka oonay muxuu farxaa qofka faraxsan muxuu la ooyaa aamusan sidoo hadla qofka hadlayan sidoo ku aamusaa bas waxaad sheegay dadka daacadda mar walba waxa ay daris leeyihiin walwal waxa ay la kulmaan dhiijab waa kuwa ugu badan ee jacaylka dhibaato kala kulma dadka waxa ugu dhaawac badan dadka naxariista badan ee daacadda ma ogtahay dunida inay ku yar yihiin laba qof oo si daacad isku jecel dhibaatada jacaylka mar walba waxaa dareema dadka daacadda ee qalbiyada wanaagsan waxaa jira dhowr astaamood oo ay leeyihiin dadka qalbiyada wanaagsan waxa ugu horeeya waa daacadnimada dadka daacadda qof walba ay jeclaadaan waa ay aaminaan waa ayna ku kalsoonaadaan moogtahay dadka daacadda kaliya inay jeclaadaan hal qof kumana doortaan qurux iyo hanti dadka daacadda waa kuwa mar walba aan wax qiyaamin balse ayaga ayaa noqda kuwa la qiyaama mararka qaar si walba waa daacad u tahay haddana jacaylku waa mid imtixaankiisa wata ha noqon qof u sabri waaya jacaylka ee waxaad noqotaa geesi ku guulaysta dhibaatooyinka jacaylka